وحوي تاجرنا إن تاجرنا واتينو قليل بدبادة يسوون نبت واتينو جود فلان سماي سنة إسلام مرهان تانا واتان كوبلان سنين إن جود دورشة سماي سنة جود دورشة واكرا طبعا وحرتين إن أوضياش إن كانوا وينوت شوغان شرفت بدنا يجونا وحي الله يمان دوران برلمان كي جود جونا كاسو إنه هبين دورا إيجا كهال دورا جود فافاهين دورا دمانتين إن شاء الله وحن كولا عيد دونا حل في عن معلمي بركيسنا وينكون شراء وعيدي يوم عنكم هذا عرفدي أيضا إن شاء الله خير كذا الله ينصيه سودو هذا مرة دي هالقل الوتر وجدي دير جدي يقولوا حولي مرة الله الرادي مرة الله قاتون مرة وحيابا بدن باكرة الله فيش وحيابها كلا عيديك يا عريسك يا عجولينتا يا هندلادا يا وحيابها مقالة كتيرنا أيضا قاب كذا إنه الله معاملة دونها waxaan la dareemayaa xoogaa ammaan xumo sida ay u sheegeen murashaxiinta ay u sheegeen ammaan darra la dareemayaa war waxaan rabnaa inaan u sheegno mar saddexaad iyo mar tobnaad waxaan u sheegaynaa maamulka hadda jira war wiilasha yar yarka ah oo aan dhalnay oo nala dhashay oo ahaa ciidamadeena ah oo runtii canshuurta aan bixinno mushaarka ku qaata oo aan jecelnahay oo dhiigooda aanan rabin inay dhiig galaana ma rabno indigooda galana ma doonayno war wiilashaas yar yarka ah wax fiican baa loo sheegaa mustaqbal fiican baa loo sheegaa laakiin dadkooda inay laayaan looma sheego waxaas waa wax ceeb ah laga xishoodo way daldoon gabdhihi baa la wacayaa qofkii beel taagan waxa la leeyahay waa ku arna haddaan ku xirayna ama la jirdilayaaba qofkii war xagee ku socotaan waxaan la yaabanahay dadku xagee rabaan inay ku noolaadaan dadku soo isla degan isku deegaan ma aha soo dadkii wada dhashay ma aha war markaad maanta qof walaalka dhibaatayso oo kan hadda madaxweynaha sheeganaya uu biri meesha ka carro diyaarad ka fuulo ayaa ka baxaysaa meelad ka baxaysa lama yaqaan aqligeena in soo laabto dadkan waa in jecel yihiin waa dadkiini haddii lagu dhaho qofkan soo xir oo soo dil xaq buu u leeyahay dheh waxba ka dhigo meesha sharafta ka xig sababtoo ah waxaanu dareemaynaa annagu ma rabno inaan wax la gabanno waxaana waxa weeye waa wax cad warqadahaas inta badan waxay ka hadlayaan Jubbaland in la xasiliyo waxa lagu xasilinayaa cadaalad baa lagu xasilinayaa waxa lagu xasilinayaa doorashada Jubbaland la sugayo oo si fiican u dhacdo kulligoodna taasay tilmaamayaan way ka bixinayaan tilmaamo waliba meelaha runtii ugu muhiimsan warqadahaas marka annagu kiis bedel doonaan ama ka musharaxiin ahaan ama yani si guud dadka anoo ka hadlay afkooda waan soo dhawaynaynaa wax ay ka kooban yihiin dadka reer Jubbaland aan ugu baaqayaa qofku markuu ka shaqaynayo cadaaladda iyo wanaagga ma aha inaad cabsoontid cabsidu waxa weeyaan waxaa laga cabsoodaa Allah subxaanahu wa tacaala ilaahay baa laga cabsoodaa waxa kale ka soo haray bini aadamku waxba kuma yeeli karaan nabiga xadiis buu ku yiri calayhi salaatu wasalaam bini aadamka oo dhan hadduu kulmo waxba kuma yeeli karayaan wuxuu ilaahay ku qadaray ma yeeli karayaan subxaanahu wa tacaala taas marka inuu ka duulayno waxa weeye cadaalad kuma socono annagu qoryo ma wadano dad ma wadano waxaan ka hadlaynaa kaliya waxa weeye waa afka waxaan doonaynaa doorasho xalaal inay dhacso intaa kaliya ma waxaan doonaynaa Jubbaland isbedelkeeda waxa weeye doorashadii Jubbaland
runtii muddada faraha badan la sugayey annagu aan kaambeenkeeda ku jiray 2 sano iyo ka badan beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliya indhaha ku haysay oo waxaan aragnay runtii qaab foolxun oo maroorsiya yani loo leexiyey taas waxaan doonaynaa jidkeeda in uu soo celiyo oo la soo dabaalo oo cid kasta oo wanaagga doonaysa arrintaas ka hadasho dadkiina ilaashada dalkiina ilaashada diintiina ilaashada oo yaan la idinku dirin dadkiina intaa kadib sargaalkii ka qayb qaata waxyaalaha xunxun ee hadda socda oo siyaasadda ku dhex milma berri markay isbeddesho oo rag cusub uu yimaado oo ninkii adiga ku hawlgeliyey ee aad ka amar qaadatay uu meeshii ka tago dhowaan waxa aad filanaysaa muxuu noqon doonaa iyadana mar kale taasuna waxa weeye waa taas waxaan leeyahay waa ciidamada Jubbaland waxa weeye saraakiisha ciidamada Jubbaland waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waad ammaanantihiin ammaanka magaalada Jubbaland waxaan u sheegayaa isbedel doonka inay la wareegeen ciidamada muxuu ahay Amazon inay la wareegeen oo ay kulli faaqan yihiin ciidamada Jubbaland qayb ay ka yihiin sidaa darteed ruux kasta oo isbedel doona oo la dhibaateeyo oo la handado oo la jirdilo waa inuu soo ribood gareeyaa oo uu yiraahdaa sidaas iyo sidaas wax lagu yeelay wax dhab ah oo waliba aan beenahayn insha Allah ta'ala anigoo ku hadlaya magaca musharaxiinta waxaan rabaa inaan idin cadeyno in aanu taageersanahay guddiga doorashada ee Jubbaland ay magacaabeen golaha badbaadada Jubbaland oo dhammaantiin ka kooban tihiin waxaan rabaa oo kale inaan idin cadeeyo inaan taageersanahay waraaqadii ka soo baxday IGAD warqadii ka soo baxday beesha caalamka iyo warqadii ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliyeed oo lidin macnayn doono waxyaalaha ka dhiman walaalayaal waxaan rabnaa inaan idin sheego arinta nabadgelyada waxaad ogaanaysaan oo aad ku kalsoonaanaysaan laga bilaabo dhowr maalmood ka hor dawladda Jubbaland oo Axmedooba uu ka yahay ma xukunto amniga Kismaayo iyo doorashada waxa loo magacaabay guddi isku dhafa oo Amazon iyo ciidamo ka tirsan dawladda Jubbaland laakiin toos uma hoos imaanayso wixii la dhihi jiray madaxtooyada Jubbaland taa ogaada hadii Ilaahay waxaan u sheegaynaa maamulka jira wax kastoo gabood fal oo lagu la kaca shacabkeena waan la xisaabtamaynaa qiimo walba ha noogu kacdo marka waxaan idinkula dardaarmaynaa in aad halgankiinii meeshii ka wadaan annaga haddeenu nahay murashaxiintii u taagneed inay qabato xilka madaxweynenimada waxaynu u taagannahay in aynu idin daryeelno shaqo idin abuurno isbitaallo idin samayno iskuulle idin samayno carruurtiinna duurka lagu hays inaana ka soo saarno sidaa daraaddeed waxaan halkan u nimid inaynu taageero buuxda siino guddiga doorashada ee ay soo doorteen shacabka reer Jubbaland oo ay maalaan golaha badbaadada Jubbaland waxaan idiin sheegaynaa biyo sacabadaada ayaa lagaga dhargaa waa inaynu isku tashano waaye si aynu u badbaadino dalkeena dadkeena iyo carruurteena qodobada sida gaarka ah bayaanku tooshka ugu shiday ee u baahan in la saxo waxaa ka mid ah kow ahmiyadda ay leedahay inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu wada kalsoon yahay caalamkuna goobjoog ka yahay caalamku wuxuu goobjoog ka yahay marxaladihiisa kala duwan sida marka odayaasha dhaqanka liiskooda la qorayo waxay rabaan inay goobjoog ka ahaadaan oo hubsadaan in odayaasha dhaqanka ay saxda yihiin marka baarlamaanka la qorayo marka madaxweynaha la dooranayo intaba waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan ogaano say wax u socdaan midda labaad ka hadlay waxa weeye inay laga maarmaan tahay in isimada dhaqanka Jubbaland ee baarlamaanka soo xulaya la saxo waad ogtihiin caalamku wuxuu ka warhalay in isima soo jireena oo taariikhi ah oo reer Jubbaland laga saaray liiska odayada Soomaa kuwa aan ku jirin liiska odayadana lagu daray
arrintaa waxay leeyihin arrin la aqbali kara maaha waa in liiskaa dib loo saxo taasoo micnaheedu yahay in odayaashii ka maqnaana lagu daro kuwa feega ana laga saaro qodobkaasaa isaguna qodobada waa qodobada laga fahmayo waxaa kaloo ka hadleen ahmiyadda ay leedahay musharaxiinta dadka musharaxiinta ee xilka doonaya inay u tartamaan oo annagu aan ka mid nahay inay xaq u leeyihiin inay tartamaan oo aan maadaama la yidhi isqoriddii waa la xiray arrintaa inayna waxba ka jirin oo qofkii doonaya inuu isqoro uu isqori karo shuruudaha meesha lagu soo qorayna ayna shuruudo sax ahayn oo loo baahan yahay in wax laga bedelo waxaa kaloo oo qoraalku uu ka hadlay in la caddeeyo marka la yidhaha saddex ha la keeno aan mid kala baxe saddexda maxaa lagu kala saaraya waa in caalamku uu og yahay oo la yidhaahdo saddexda marka la keeno waxaa lagu kala saarayaa waxa iyo waxa maalan in la yidhaahdo waxaa la qaadanayaa koodii shahaado jaamacadeed haysta ama koodii 10 sano oo shaqo la soo caddayn karo soo qabtay ama koodii mataqaanaa wuxuun in ay caddahay oo dadkoo dhan ay og yihiin saddexda waxa lagu kala saaranayo ayna ahayn kan ii soo saar inayna arrintaas la aqbali karin annagu haddii guddiga la qariyey ma ahan kamara hoosteeda lagu magacaabaye ma ahan international groupkaan u bandhigayna meel kastuu tegaya ciddii rabtow inaad wax weydiiso waad u imaan kartaa ciddii rabtow musharaxiinta waa u imaan kartaa dowladda jubbaland oo dhisan yaan ku soo dhawaynaynaa adduunkaan ku soo dhawaynaynaa dowladda federaalkaan ku soo dhawaynaynaa jubbaland oo dhan baan ku soo dhawaynaynaa cidaan xaqirayna iyo cidaan diidayna iyo cidaan ogolaan midna ma jiro cigaashigaad yaa soo guuray habeen wuxuu ku soo baxay geed qotomo sidan oo kale bahal buu mooy wuu fadhiistay soo habeenka dhow gabanayay awlaali wax goormu kugu soo booduu waagi wixii geed buu noqday wuxuu geedyow waxaan ku moodi waxaad noqotay waxaan hadda ku yeelayo waxaan ku moodi yidhi bahal waxaad noqotay geed waxaan ku yeelayo waxaan loo noqonayno waa guuro habeen buu waxaan hadda ku yeelayo salkaa baan kaa jarin isbedel doonka wixii ka hor imaada horta salkaan ka jaraynaa ishi butaay ku barkaac isbedel doonka wixii ka hor imaada salkaa laga jari beesha caalamka iyo shacabka jubbaland iyo dadweynihii Soomaaliyeed ee raasacsiir raaska boorita deganaa way israaceen ninkii diidahow dadka waxaynu galaynaa mabaadi'da guud ee habraaca doorashada iyo shuruudaha ayaan soo diyaarinay hortiinaan ka akhriyaynaa meediihana waa siinaynaa insha Allah intaa wixii ka dambeeya odayaasha dhaqanka ayaanu u furi doonaa hawl yar oo seminaara oo qaabka wax loo soo xulo aanu iskala kaashan doono aanu wax ka bari doono oo maalin iyo laba intaa kadib hawshii weyneed baan gudagelaynaa insha allahu tacaala ordhac mabaadi'da guud qodobka koowaad mabaadi'da hagaysa hannaanka doorashada ee 2019 ee maamul goboleedka Jubbaland waa baarlamaanka kow inuu yahay hannaan hufan oo loo wada dhan yahay oo isla ogol yihiin dhammaan daneeyayaasha sida baarlamaankii koowaad xukuumadda mucaaradka waa inaan hannaankaasi noqdaa mid xaqiijinaya natiijo loo siman yahay tallaabo kasta oo la qaadayo loo mara dastuurka Jubbaland saddex in la ilaaliyo xaqa qof waliba u leeyahay inuu xil siyaasadeed raadsado ama xil siyaasadeed mid doonaya uu taageero afar in hannaanka doorashadu noqdo mid damaanad qaadaya in si siman oo daahfuran looga wada qayb qaato ololaha doorashada inuu noqdo mid dhiirigelinaya midnimada dadka iyo deegaanka Jubbaland isla markaasna abuuraysa kalsooni lagu qabi karo hay'adaha dawladda iyo natiijada kama dambaysta ah lix inuu ku salaysan yahay xaqiiqda tixgelinna siinaya duruufaha amni
dhaqaalo bulsho iyo siyaasadeed ee deegaanka ku xeeran 7 inuu yahay mid cad xisaabtan ku dhisan la isku halayn karo korna u qaada kalsoonida dadweynaha inuu leeyahay qodobo sharciyeed habboon oo la soo marin karo dacwooyinka iyo hababka racfaan qaadashada 9 inuu xaqiijiyo soo saaridda baarlamaan u taagan dhowrista dastuurka iyo danaha dadka iyo deegaanka 10 inuusan geysan waxyeello ka iman karta falal dhiirigelin kara khatarna u horseedi karo colaad ama dibudhac ku imaan karta tallaabooyinka horey loogu qaaday dhinacyada dhismaha dowladnimada iyo dimuqraadiyiinta dowlad goboleedka Jubbaland qodobka 2 nooca doorashada baarlamaanka 2019 duruufaha dhaqaale bulsho iyo amni ee ku xiran deegaanada Jubbaland awgood waxaa cad inaysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah sanadka 2019 sidaas daraadeed doorashadu waxay noqonaysaa mid dadban oo oday dhaqameedyadu saldhig u yihiin kuwaas oo soo xulaya xubnaha beelahooda u matalaya baarlamaanka labaad si loo yareeyo waxa guddiga ka go'an in hanaanka xulistu noqdo mid dimuqraadi ah oo daafuran loo wada dhan yahay qodobka 3 tirada iyo sida beeluhu u kala leeyihiin kuraasta lagu tartamayo waa 75 xubnood oo tirada guud ee golaha baarlamaanku ka kooban yahay 2 beeluhu waxay kuraasta u kala yeelanayaan sida hadda ay u kala haystaan waxayse beeshu u madax bannaan tahay go'aanka sida jifo hoosaadka loo kala siinayo qodobka 4 diiwaangelinta oday dhaqameedyada beelaha ugu horeyn wuxuu guddigu diiwaan gelinayaa oday dhaqameedyada rasmiga ah ee beelaha kuwaasoo saldhig u noqonaya soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ee doorashada 2019 ka hor inta aan la bilaabin hawsha soo xulista xubnaha baarlamaanka guddigu waxay oday dhaqameedyada siinayaan wacyigelin iyo tilmaamo la xiriira habraaca iyo qorshaha soo xulista xildhibaanada shuruudaha laga rabo murashax inuu yeesho 3 oday dhaqameedka sugnaanta matalaadda beeshiisa la isku qabsado guddigu waxay u gudbinayaan guddiga khilaafaadka si ay go'aan kama dambaysa uga gaaraan sida cidda beesha matalaysa qodobka 5 soo xulista xubnaha baarlamaanka Jubbaland doorashada dowlad goboleedka Jubbaland ee 2019 xubnaha baarlamaanka labaad ee tiradoodu tahay 75 mudane waxaa soo xulaya oday dhaqameedyada beelaha iyagoo wada tashi la sameynaya nabadoonnada jifooyinka 2 oday dhaqameed kasta wuxuu soo xulayaa tirada xildhibaanada ee jifadiisa hadda ku leedahay golaha baarlamaanka koowaad ee Jubbaland 3 isagoo la tashanaya nabadoonnadiisa oday dhaqameed kasta wuxuu waqtiga la siiyey ku soo gudbinayaa magaca ama magacyada beesha uu matalayo golaha baarlamaanka labaad ee Jubbaland isagoo halkuu kursiga u soo xulaya hal murashax oo kaliya iyadoo la ilaalinayo shuruudaha laga rabo murashaxa oday dhaqameedku wuxuu guddiga doorashada iyo xuduudaha u soo gudbinayaa foomka magacowga murashaxa oo saxiixan isla markaana tiimbaraysan marka oday dhaqameedku uu gudbiyo guddigu waa inay ugu yaraan 5 xubnood oo guddiga ka mid ay goob joog yihiin waa markii halka xubin la soo gudbinayo ay oday dhaqameedku soo gudbinayo qodobka 6 qabashada liiska murashaxiinta guddigu waxay foomka murashaxa ka qaban karaan oo kaliya odayga rasmiga ah ee horey loo diiwaan geliyay mana aqbalayaan foom uu shakhsi kale keeno 2 si loo ilaaliyo hufnaanta iyo hanaanka oday dhaqameedku wuxuu murashaxa ku soo gudbinayaa foomka magacowga ee guddigu horey u siiyey 3 marka oday dhaqameedka laga qabto foomka howlwadeenka diiwaangelinta murashaxa waa inuu hubiyaa in foomka si sax loo buuxshay si sax loo buuxshay iyadoo la isticmaalayo hubinta foomka howlwadeenka diiwaangelinta murashaxa ma aqbalayo codsi aan dhammaystirnayn 3
haddii wax qaldan yihiin ama wax laga tagay howlwadeenka diiwaangelinta murashaxa waa inuu ku wargeliyo codsadaha inuu soo saxo qaladkaas kuna soo dhammaystiro saxideeda ka hor xilliga dhammaadka diiwaangelinta murashaxiinta. baarlamaanka waxaa ururinaya guddigaas doorashada xubnaha baarlamaanka markii la soo dhammaystiro ee la dhaariyo baarlamaanka waxaa guddoon u noqonaya qofka ugu da'weyn rag iyo dumar midku doona ha noqdee qaanuuniyan. dabadeedna shaqada u horraysa ee uu fuliyo waxay noqon doontaa inuu magacaabo guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka. marka guddigaasi waxay soo saarayaan shuruucdii iyo habraacii lagu dooran lahaa guddoonka baarlamaanka. dabadeedna ugu dambayn guddoomiye iyo 2 ku-xigeen ayaa la dooranayaa maalinta uu guddiga baarlamaanigii asteeyey doorashada guddoonka baarlamaanka. halkaa markay joogtay haddana mar kale guddoonka baarlamaanka oo ka kooban guddoomiye iyo 2 ku-xigeen la dhaariyo waxaa ay qabanayaan iyaguna shaqada u horreeyay fuliyaan waxay magacaabayaan guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha. marka halkaasuu brosees ka soconaya saasuu baarlamaanku u qabsanayaa doorashada madaxweynaha. waxaan idin caddaynayaa marka baarlamaanka la dhaariyo ee qofka u da'weyni uu ku fadhiisto kursiga guddoonka xildhibaanka u da'weyni ku fadhiisto kursiga guddoonka baarlamaanka shaqada guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland ee guddoomiyaha u ahay halkaas ay ku dhamaanaysaa. xalay iyo